hal cudur oo maalan oo corona hal xabay ayaa lagu soo diray fircoon bari maxaa lagu soo diray kooxiis waxa lagu soo diray farsalna calayhim duufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dam yani intaas oo la soo diray hadda wal corona bis la joogtaa wal corona bis laga qayliyay hadii wal corona ta wal fayrusa lagu dari lahaa xagee la aadi lahaa marka xagee loo carari lahaa hal xabaaba yani adduunka oo dhan uu ka wada qayliyay marka ilaahay awoodiisa markuu wax dhaqaajinaayo wixii la ka saayo dhan meeshay ka baxayaan amin artist fanaanka Soomaaliyeed karkateen wax ku sawira Soomaaliyeed arka sawir ku soo saaray laba corona oo seef wata oo guri hoos taagan oo caalamkiina intuu dirishada wax yar ka fiiri caalamka oo dhan meesha ku ururay guriga asay kigiisa banaanka jooga hebel oo xoreysan tan maqal jirtay corona adduunku xoreysan yahay marka soo corona waxa uu xoreysan yahay oo meesha taagan yaa wuxuu carab banaanka ma soo bixi kartaan nuclear ma lagu dhufto ku adda goor Soomaaliya wali ugaarsi intuu aaday baasuuki aaki waxba wateen ki baasuuka wata agtiis waxa soo martay sagaaro ki aaka ma ki baasuuka sagaaradan wuxuu dhayay fakanni baasuuka ku day hal baasuuku sagaarada ku dhuftay maxaa ka soo haraay sagaar baasuuka urtay way baabaadi wali way war aw sagaarada maxaa xagee aadi lama yaqaan meel aadi Soomaalida in qaar kamid ah ayaa Facebook waxa laga joogi waayay diinta islaamka xaqnimadkeeda ayay diidayaan heer waxay gaareen ilaahay inkiraan qaar kood oo yiraahdaan jiritaanka ilaahay ma jiraba markaas mid aan la yaabay weligay ka soo kala ma arkin mar hore waan sheegay maleena wuxuu yiri ilaahay buu wax ka sheegay markaas aan su'aal waxaan u qoray adiga yaa ku abuuray markaas su'aal ani leema abuurin hooyada ay dhashay waxa weligay ma qashan hooyadan ku dhalaysa yaa kugu dhaxabuuray adiga haday wax dhalaysa banaanka diiska istaagtay ma iska dhashay marka yani heer waxa la gaaray yani jeeska diinta iyo diintu waxay sheegayso xaqaa'iqa looba maleeyaba waxaan jirin oo lagu kadsoomay yani waxyaabahaas ay haystaan tiknoolajiyada ah oo muslimiinta tabardaridooda maanta iyo dacfiga ay ku jiraan la yiraahdo waakaas muslim haduu wax taraayo muxuu daciif u yahay oo korka looga saaran yahay oo loo gumaadaya oo loo leynaya oo may wax iska celiyaan haday wax xaq ku taagay halkaas ay arintu gaartay dadku inay fidnoobaan oo diintii ay ka laabtaan ay ku sigteen halkaas oo kale markay gaarto kuwaas oo ay labta aan lahayn in la edbiyay u baahan yihiin marka see loo edbiyay marka waxa loo edbiyay muslimiintu way tabardaran yihiin ficlan oo hadda duruuftooda yani isku ma hagaagsano khilaafka dhexdooda mu'amaraadka korka laga saaray kala qaybinta isku dirkooda madax aan ayaga ka naxaynin ee kuwa kale cadawga la jirta talaaba ayna qaadi karin qofkii khayr ka shaqeeyo aan loo ogolayn inuu ummadda masiirkeeda qayb uu ku yeesho la fogeynaayo yani boqolkii sano aan soo dhaafnay boqol sano wuxuu ahaa muslimiinta markii loo fiiray aad u adag yani boqolkii sano waxba isbedel ogaada oo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna allaha sayab'athu ilaahi wuxuu soo saaraya ummadan muslimka ah wuxuu soo bixinayaa ala ra'si kulli 100 sana boqolkii sanaba man yujaddidu laha diinaha qof diinta u cusboonaysiiyo bimaana hab dhaqanka diinta loogu dhaqmaayo sidii ay ahayd qof ugu soo celiya ayaa boqolkii sanaba ayuu ilaahay mar u diyaarinaya mantaas marka mufradna way noqotaa jamaacana way noqotaa hadda xoogsoontii dadka muslimiinta ah dawladdu waxay lahaan jireen ayagoo dhan ka dhaxaysa oo ka soo bilaabanaysa xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu geeriyooday Abu Bakr Siddiq la doortay Umar ibn Khattab maamulka dawladnimo muslimiintu way soo lahaan jireen wadamada la kala qeybiyay arkaysaan oo qaar midna hada Hijaz ayaa wadan ayaa dhigi jiray meel Sham ayaa meel dhigi jiray Iraq ayaa meel dhigi jiray intoo dhanna hal dawlad isku wada ahaayeen waa la kala qeybiyay markaas intaas oo dawladood ayuu isticmaalku u qeybiyay inta marka aan dawladda islaamka markay jirtay muslimiinta oo dhan dawladdaas ay hoos imaanayeen hadii qof ayaa kamid wax la soo gaarsiiyo qofka markaas muslimiinta ugu sareeya oo khaliifka la yiraahdo khaliifatul muslimiinka ayaa loo dhawaaqan jiray hadda waxa aragteen Falastiiniyiinta markii guriyahooda la duminaayo oo gabdhahoodu ay qaylinayaan gurigoodii oo baabacsan intay kor istaagaan waxay u dhawaaqdaan min taariikhda soo maray oo la dhigi jiray mu'tasim markaas waxay dhaayeen waa mu'tasim xaguu joogaa mu'tasimkaas munaasabada ay saas ku dhacdeen waxay ahayd ruumaanka qolada la dhigi jiray ayaa gabar muslimada ayaa afduubeen markaas markay sii kaxaysaneen waxay tiri
ومعتصمة الله معتصم كيجيو مركز وركي لوجي وحال قبل اللي أفضوي ساسيتري ورقدوا سوقري مركز سوقري دولة سوين الروم بقر كمركز حكومة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم من المعتصم بالله خليفة المسلمين ورقدوا حيكسوا عطا معتصم ومسلمين توجاميو ذا إلى كلب الروم أي الرومان كانوا كسعطا وكلب هذا إلى كلب الروم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الروم ورقدوا وقري جري إلى عظيم الروم محايس بدل المركز النبي يقول عظيم أي قرى هذا محا كلب الله قرى بيقول النبي عظيم وقرى مسلمين بالله ويا هايان ويتبرد الرايان أنت يكسوا حوجي سنايان إنه إسكس السبع مقع أي عظيم الروم أي قرى لكن هذا مركز هكذا لسوء جاري إن كلب اللي قري كانوا حاكتوا سيسا كلمة صوص عتاء ونهاية حور إلى كلب الروم حور يدلق صراحة قبلها إسكسوا ده وإلا هذا سود يوسف والذي بعث محمدا بالحق إلهي بان كل نارته لو جهزن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي إذا محنكون صدرها تربطني وحي كقبان صفك أقوه الرأيان هذه وكل تاغيه كأقدم باين عنه يلي تاغيه انت سوى يبوح ده أيان صوت دياران صوت قاجنا قبل اسك سودا مرك عزية شرف أيام محان لهين مرك السلاس أنا هين وقبر مسلمات وهل قبر حديث الله أن عيدا ماذا دقاجين جرني وندي جرني واكاس هذا بوسكي وحابد المرايكنك وهذا مثل هذاك باسبورك الصومالي وهيستان هيستا بالاخره الصفحه ugu horeysay maxaa ku qoran ciidamada Mareykanka meel kasta adduunka ku joogto diyaar ay ku yihiin marka meel kasta waa jahdo waa la yaabay marka muslimkii aaway kaas u kaali sanadku markuu 1924 hadda waxaan joognaa mugtay 2020 meeqa laga joogaa 1924 iyo 9 iyo waxa laga joogaa iyo 6 2000 iyo 24 yaa waxa ku buuxsamaysa 100 sano taariikhdaas maxay tahay waa 100 sano ka hor markii dawladda muslimiintu ay lahaayeen ee ugu dambeysay albaabada la isugu dhuftay oo la orda kala taga waxa isu tiin ma jirtay kala taga oo dawlado yar yar oo ay qoorta isu galintii loo sameeyay isticmaalkii aan galnay rafaal la soo maray 100 sanada la soo dhaafay marka waxa uu madaxa laga garaacay muslimiinta dhiiga daadanaya dhan muslim ayuu ahaa meesha la gaaray marka hadda bariyaha ugu dambeeyay dagaalkii oo qabowga markuu dhamaaday gaaladii isku haysay dagaalka qabow marka iyagu waxba kala qaadi waayeen is arkeen yaa waxay yiraahdeen war cadow kala jira oo ay tahay in hadda ka takhalusno muxuu yahay innahu al-islaam hada dhaha markaas muslimiinta meel kasto adduunka ka joogaan waxay noqdeen kuwa weerarka lagu yahay markaas cid walba midabkay doonayaan halato noocay doonayaan oo gaale ah dad muslim ah lay hoosta ku hayeen dilaayaan markaas kii loo caabuday iyo kii oo dhagax caabuday iyo kii geedka caabuday iyo kii aan waxba caabudayn oo dhan muslim buu ka saarayay hadda waxa uu dambeeyay Shiinaha Hindiya waxyaabaha ay sameeyeen muslimiinta la nool hadda Hindida oo kale waxay sameeyeen say u garaacayaan say u cadaabayaan Shiinuhu suu yeelaysa waxa caalamku markuu isku haleynayay muslimiinta maanta saan loo galaayo hubna ma haystaan dhaqaalana ma haystaan ciidanna ma haystaan dadkii marka muslimka ahaa qaarkood yaa markay adkaysan waayeen waxay dhahan sidaan yani islaamnimada sidaan miya qaar diinti ka baxay marka oo yiri anaga saan kuma sii jiri karnaa waan iskaga tagnaa diintan way wareereen laakiin waxayna garanaynin diintan xoog ku jira iyo meesha uu ka imaanayo adduunku maanta muuna marna filaynin garoomadii caalamka oo dhan iyo wixii diyaaradaha oo dhan ayaa maanta fadhiya hal diyaarad oo kici kartan aysan jirin ayagu waxay yaqaaneen way ka baxday marka ayagu waxay yaqaaneen wadan hebel la dhahaa adna wadan hebel lagu dhahaa hubkaaga soo kaxayso ana hubkaaga soo kaxaysana aan isku urgufno hubka marka oo saana kana iska difaac kana iska soo difaac kana dagaal ay ka sii jireen oo noocaas ah oo loo hub urursaday kaasa marka lagu kadsoomo waxa la yiri wax naga maqanba ma jirto caafimaadku waa diyaar dhaqaalihi waa diyaar militariga waa diyaar dhinaca kaas isku aadanta muslim meesha aan ku aransaan rabno ayaan ka yeelayna markaas anagoo qarnigii 12aad ku jirna caalamka oo dhan oo wada fiirsanayo yaa dad nool la jarjaray hilibkooda oo Shiinaha iyo Hindiya ay sameeyeen xuquuqda insaanka dadkii u doodayna aysan ka hadlaynin dadkaas maxay sameeyeen marka yaa u maqan samada u furan xabsi weyn ay markaas samada gacanta u taagteen ilaahay yaa u soo gurmanaya yaaba jooga oo wax taraya male bas ilaahay aayadiisu ma soo baxday inna allaha yudafi'u 'ani alladhina aamanu ilaahay baa difaaci ilaahay difaaciisu markuu soo rakibto
هذا وحن سوق هذا مي وضع إكساس وأجا فرعون حل جيسي يا ضدك مؤمنين تأجوي يا حال فرعون ورمه هيسا قال محاجر محاد عي وحور محاد عي هنا اللي جابه حاد عي موسى يكون رأسا يقوم كيسا مصيدنا تكون عفيسا إن يقولك فساديان عبادي هذيك اللي عابدين أي كتجان مساسة فرسان يسا مركز يساوي على فرسان كرماء محن سميرنا نقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم ويلسنا ونكلينا قبلها واسكدينا وإنا فوقهم قاهرون وأن كو أمر كتاغلينا سام دونان كيلينا عد علين كرتا مجرته وهي لوين فرعون يقول سهيل لوين وهو القاهر فوق عباده إلهي بعد والبكاء أيوة waxay soo qaateen inay dadka ka adeegiyeen soo hadda kuwa isma arkin dawladaha adduunka annaga ugu adag yaa naga adag dawladda ciidankan haysata dawladda sida wayna fawqhum qaahirun markay saas dhaheen nabi muuse warkii uu gaaray sida inuu damacsan yahay fircoon markaas wuxuu ku yiri qoomkiisii oo muuminiinta ahaa istaciinu billahi wasbiru ilaahina kaalmaysta sabra innal arda lillah dhulka ilaahi baa iskale fircoon iska malaha dhulka kural ardayna aynu ku soconaay ilaahi baa iskale dad maanta jooga waxay u qaateen maraykanku inuu iska leeyahay dhulka إن الأرض لأمريكا أو لبريطانيا أو للصين أو للهند ما دام نوكليير وحيابا هيستان هل كاس أيها إسكال دولك ورولك أيها إسكال إن الأرض لله دولك إلهي با إسكال إلهي با سميست كل الأرضين أركيسان معدة إلهي لا سميست مايا إلهي با سميست ورولك إيدا يا ليكر الله مايا أنها صار مكيرين ساس ميا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعلى علينا قلوب المؤمنين تبحيبين أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا موسى انت هذا نوع ما نكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسانا اليجري حتى مركز الوصول نسانا اليجرينا سيئنا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون حول عدونا إلهي وإذن كقبنا آيات وكاذية سلاس مركز جوبت إلهي مركز ضدك قبنا آيات هل مرء جب كمسيو ترتيب يعني ضدك كثير إلهي ونحريس بديه واللود دقايا هذا مثلا باروك مركو شدالك قوسنايو هل مرء شدالك يزم مدهايو شدالك وصو شدايا قدود وصو شدالك وكوكو يرياي وهداد مركز فهمتوها انت مال كله حتى شدالك وشبطو سفرك واسي ولان كرتا لكن هذا دجلا قسينين هذا وصو على كيلومترات بدل 1 كيلومتر هذا وصو على قدود كيلو وكو شدايا 1 كيلومتر انا كنت على هذا ورجوب ورشدالك وشبو مال عدلاه ما كان مريش وباورك فريسنا marka adduunkan waa saas oo kale ilaahay markuu dadka qabanayo hal mar lama daba gediyo tartiib loo qabtaa fircoon waxa lagu sameeyay abaara la geliyo xoga abaar ah roobkii xoga la joojiyay abaara la dareesiyay beeriha u soo bixi waay waa nooc saas oo tartiib ah war isgarabniyo awood ma lihide beerti waato soo bixi weeyay roobkii waa la celiyay wala qad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqs min ath-thamarat la'allahum yadhakkarun balina wax gartaan abaarti marka aad ugu baraarugin waxa keeda ma u siyaalay roobkii waa bariyan sugaynaa kan kale sugayso laha yaa markii halka la joogo xoogayna lagu raadkeeyay yaa waxa la hadii wanaag uu arkana oo xoogaa nolosha loo furfurana wuxuu leeyahay raganimadeedan ku keensaday fa idha jaatum alhasanatu qalu lana hadhihi raganimo iyo shaqaysi ayaan qaadna halkan sitayeen wa in tusibum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a hadii xoogaa lagu adkeeyana waxay leeyeen annaga barwaaqan ku yeelan jirnay Musa intuu soo baxay ma abaarka bixilana Musa hana abaarta watab أسباب عبار هذا شو تاني يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون مركي وحقالوا ويراد كيسو ورسكدافهم مدح عليه وحيدا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا تسحرنا بها فما نحن بالمؤمنين وحكا صداد موكين تكايين ويلدين ويعافمات قبان ساس مياه ولغسي أوجي مركاسي إصدريمين إننا نتور لهين waxay garteen marka meesha laga raacay fircoon dadkaasi marka dambe waxay garteen oo maxay dhaheen walamma waqa alayhim risu cadaabku markuu ku dhacay waxay qaalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak waxay dhaheen adi ilaahi ballan baa idin ka dhaxayso waxba isku ogtiin oo maxaa isku ognahay kuwan kastoo waan yara kulaynaayay markay qayliyaan ka jooji dheh saasa isku ogtiin oo nabi sallallahu alayhi wasallam markii la soo saaray wixii ka dambeeyay al-umma al-muhammadiyya عذابك إلهي كمسو دجينا عذابك نوع عاصو كله كل أي دمانايان كل ما دمانايان لكن حقا ير أو كلين عيال الجنينايا عذابك الدبرجون تاع وحلو جدا لبع الرمط ومد النبي جوبي أو مركي كوي وقال الله القرآن كديدنا إجرادين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ويتنا بعذاب أليم
إله وحيد أن القرآن كان دو حقيقة دقحان وقصوا ضادي أما عذاب حنون بدل نوكين ساسي وهلين مركز إله وحيد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أنت عدو النبي ولا جوجت العذاب مايو فضل هذا بركة هذا جريتان كذا أذيك جوجتان كذا أيكم بالبادين تاسوا متمتك الحالي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيوة استغفار لي ما أنا أنا إلهي مهلا جايو هذا النبي إنه لم يجوه لكن وحنا يسنا الاستغفار مركز هذا استغفار تودني وإلهي ونقاد عن الله استغفار تاسالوه بالبداية لكن استغفار تاسو حي علم يسا دبرجوينتي أو دفع قدرنا نقول كلام رجاهد أي علم يسا ما هنا عذاب كي كلاه ذلك حلقته سناي مع علم يسا والاستسنايا هذا والاستسيا مركز أو ودي عالم كجرة أردن ولا فريسي ولي بوحوين وما سمعين هل عذر أو مثلا أو كورونا هل حباي أيها الوصدر فرعون بري محل وصدر كويس وعلى وصدر فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم يعني أنت سؤال صدري هذا والكورونا بس اللي بجوكتاب والكورونا بس اللي لا قيليه هذه والكورونا والفيروسة الودر لها حاجة لا هذه لها مركز حاجة لا عرر لها هل حبابة يعني الدون كلهم وكل قيليه مركز إلهي أودي سمركو حتى قاجنا أيوه وحي لكسا دم ماشي كبحيان صلى الله مرة مركز على الاستسلام خدوا قيمة دمركو حي وحيكون صار التوحيد كا إلهي سبحانه وتعالى يدك أنت أشياء وح كل عي يا وحي الله ساس وحكرنيها ما الله ساحقه مسوي وح كلا هيسان هذا تصالح هل حبنا سوق هل آية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وحال غف مركو دباتا أي نعضو يا دباتا قاضي كرا المضطر هذا عالم كسوما نقول المضطر ولا دباتوبي يا أجيب مركا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء حماته يا قاضي يعني أإله مع الله ما إلهي أن إلهي هين باجرة فالوكاس يحسوب بحانا ضدك حوق الشيء قرأي أنك دباتا قاضي كرنا أنك السان يلي كرنا ضدك هرتو ذا كينين ماله وحي السجون عدايين إنا عاجزون تبر ما هينو على بلاه المرك على كم هو نقضي بلاه أسبوعية صعدة وحين نقول دونان أسبوعية حنون بدن موجودة مرك شرنا محل لها هرت يا جريت أمريكا ماشي أنا الربعين نقطة أمريكا دي وينيت الأمريكا العظمى دي آوي كورونا بس أمين أرتيس فنان كسومالي ده كاركتير وحكو صورة سومالي ده كسوه كسوه ساري لبا كورونا أو سيف وطا وقولي هو استاذان أو عالم كينا انتو دريشنا وحيا كثير عالم كورونا ماشا أكو قرية أسأل كيف يسا بنانك جوه هبل وحريسان تنبقى جرتي كورونا دونكو حريسان يا مرك سو كورونا وحريسان يا ماشا تاين يا حولي عرض بنانك موسى بحي كرتان نقول يا ما لو قدفت كو أدى قول سومالي وعالي وغارسين تو آلي باسوكي آكي وحبيوتين كي باسوكا وتأكتيس وحصومرتي السجارو كي آكا ما كي باسوكا سجارة الحورة يفكرني باسوكا كدي هل باسوكو سجارة كلفت محاك سهراء سجارة باسوكا كلفت وي بابا وي ورأوي سجارة ما حاجة عادي لم يغير ميلاد مركب حال بدي أول لين هل نقول يا رينا وقص بران كورونا نحن وحنا دبي هرت حقون سو يستاهل يا أركاب إيش ما أركيسو المقبض واي هذا واحد كاستمركي الشيء واحد السمين واي واحد أقول من يسوون نقدين dadku neefta ku celiyaaye qalabka lagu neefsado hal soo raadiyo hal daaweeyo ma daawooyada wal daaweyn way daawo lama hayo laakiin maxaa la sameeyay qofka markuu neefta ku celiyo neefta ay qabato qalabka afka loogu xiro markaas hadda heer meelaha qaarkood waxay gaareen odayaasha oo sanka ugu xiran yahay oo koronadu ku dhacay iyo dhalinyaro waxoogaa ah ayaa isla garab jiifa mesela oo korona isku dhacay qofkii weynaa oo soo jeedo nimanin wali waxa leeyahay kan waqtigiisu uu qaatay aan ka bixin oxygen-ka war hayga bixinina waa laga siibaa dhimaha daraj kan yara loogu dhijinaa waxa leeyahay kan hadda soo socda waxoogaa noloshu yani mustaqbal u soo socda odaygan wixii uu qaatay korona hadduu doon ha ku dhintee yani qalabkii yar qalabkana waxa 200,000 laga cabsanaa inuu ku dhacay hal mar yaa isbitaalkeen la keeni karaa say hadi adduunkii waxa ka dhacay awood weyn oo aan horay loo arkin ayaa inaga ilaahay goobjoog inooga dhigay wuxuu quraanku ka sheekeynaya oo ummado kale hal yantadruuna ilaa mithla ayaami alladina khalaw alayaami alladina khalaw maalmihii la soo dhaafay sidoo kale bay dhibaato u jiri jirtay dadkii ku baagnaa baa fahmi jiray marka inaga ilaahay wuxuu nagu soo baagay oo aan aragnay
عالم تكنولوجيا وين هيستا أو تكنولوجيا دي أي وحبة قبل ويس ورتنا وكلام الله أركي وضي الصومالي بحال هذا كور أبار على وحال أبارتنا وكلام من صومرت مركز ستنا وكلام صومر هذا ناركل هذا أنا مرة نبغى نحكي معه تون واحد كذا من ناركل واحد مركز عالم كذا وحتاجين تنا وكلام ما عرفتين ما أنا أرى تاجين هلو عبرة قاتمر قوة يحوق يعني لو فاننا إلهي سبحانه وتعالى دون كان إسكاله هلو دايو إن الصومالية جوجنا الحمد لله رب العالمين وان في عنا هاي إلهي بينك الصخري أود إنك عن لنا معها يعني آد أنا دعي سنه